gabadha waxay dhahdaa qof ay koris ah baa dareemi kara xanuunkaaga ilaaha iyada ida adna iyada alla u naxariista aamina baa macaan iyadii aniga waxay ahayd wax walba hooyo ii ahayd aabay ii ahayd walaalay ii ahayd eeday ii ahayd adeer ii ahayd abtay ii ahayd habaryare ii ahayd waayo noloshaydaba ayada ila soo tacabtay oo igu soo rafaaday hooyadii aabay ma arkin anuu weyna raadiyay aan dhalay kadib waxay geeriyootay anuu ma isa uurkeeda loo jigjika joogo intaas baa ayada ila soo tacabtay waxaa xasuustaa mar waxyaaba qaar waxaa jirtaa brefeda ka hadli karin laakiin markaad rafaado qofka kugu dhawaa unbaad xasuusanaysaa alxamdulilah noloshayda habi waaye farxadaa ku jiraa laakiin booskeed cidna iima buuxini karo cidna kuwa ani dhalaataa ima buuxini karaan booska ayadaa igu soo tacabta ayadaa igu soo tiirbeeshay ayadana waa wiil iyo hooyo garab taagneyn bay anii soo korisay kaliya waxaa garab taagnaya walaalaheed la dhashtay iyo ilmahay sii daleen qudaar intay banaanka dhigto ay goobeyn jirtay ay ani igu korin jirtay guriga waxaa ii yaali jiray jeeg hilib oodkaca jeeg caaniyo shaah la isku daray qudaar ee goobeysay kasoo shaqeysay igu biili jirtay qof kaliya waxay ahayd markaa ilmeeyo ilantayda tres qofka waxay hadaa maqana hadaa wax walba ii sameynayso maalinta gurigeena kasoo tegaya waxay ku tiraada way macaan kaali muslina way aabbaankaaga dhigato caleedaa qabtaa orod dadka dhanna markasta way jecelyihiin waxaan xasuustaa say igu tiraaday maalinta mawlidii gursada waxay ku tiraada hooyo gabadheyda waayay koris haddaad even wax ka aragtid hooyo iigu samir ha iga xumeynin aada u mahadsanya booska iyada iima geli karo laakiin waanadeeda u qaatay oo markasta wuu ii wanaajiyaa waxaa waaye rasmirees qisadeeda waa la qiirooda markii aan dhageystay idinkana waxaa waaye sidoo kale waa la qiirooteen saa jeclaa walaalahey maxaa anaga dhan ayaa wada jecel waa fanaanadeena waa walaasheen waxaan leenahay hore u soco ilaahayna maaragtay wixii sharcaha kaa qabto adiga reerkaagana allah kugu barakeeyo ayaan leenahay